مدي وسدي بلد كعيود إن أنه هلك أنه سنتر كسوبنا ضد عن كل اللي وحنا أسود دوانه patientية وحن لا هاي سيرفيس كاللي سوبيا ما ماشي عن سنتر كاللي سوبي وين اعتمادان أو عاد كفايدة ستين وهي وحاول بدن وحاول يدك أنه ودالينا ودونينا إن أنه حريقة وأنه باهدين أنه بوحنا وباهيوينك ولا على كوا خطرتها جروينك أن داود الهين كهرتجي دله أن أسوأ مرة ديواتوي بدن سيدا أنه أورجانيز قرينه أما عن شغل كاس أما سيرفيس كاس أن أفلنه إن أنا رجعنا عديك يوم كاستعمالنا وحبك بنينا نوعي معنا إنه ورسلين سيرفيس كاس وحنويه وحبديهن جروينك فافا وأن mar haddii qofka ay ku dhacaan heer gaaraan aan waxba laga qaban karin haddii laakiin bilowga jirada la ogaado ee la qabto waxa dhici kada absolute inay ka dhib yadahay hargabka daawadiisa marka waxaan leeyahay yani maada istaaweeya barta mataqaana jirooyinka in laga hor yimaado jiradan ayaan lahayn daawo ka hortagid kaliya leedahay OBD iyo IBD has ku khaldinina meeshan chief ma jiro waxa waaye service emergency waaye taasoo ma doctor waa service emergency waaye wixii chief u baahan oo dadka gawaarida lagu wada liita waxa la geenayaa isbitaalka weyn la geenayaa waxaan dhakhtarka codsanayaa servicekaas wixii 6 saacadood ka dambeeya inuu free noqdo hadii sameeyna hadii waayo insha Allah waxaanu jeclay inay free noqoto wixii ka dambeeya 6 saacadood ka dambeeya dad masaakiin ay imaanaya kuwa xiriyaha imaanaya waa adu liita imaanaya iyo wixii laga dhimi karo hatta kaarka hadii laga daay wax dhan waaye servicekan uu cusub yahay gobolka uu ku cusub yahay service la OBD gaas uu leeyahay facilities fara badan dad gudaha gashaan aad ku arki doontaan waxa yeela farbashihii waxa yeela raashadii hay'adda shaybaarkii waxa yeela intii isbitaal u baahnaa oo emergency bayaala laakiin shaqo gaar ah inta lagu qabanaya ma jirto aan ahayn inta emergency-ga qofka bukaanka uu la socdo insha Allah inkastoo hadii dhamaan la isugu yimid city center la isugu yimid dhamaantayo oo aan taxanahay laami kulliye taxanahay waxaan rajeynayaa mustaqbalka in qaybaha naga mid ay galaan gudaha inay galaan xaafadaha inay galaan walow xoogaa baqdina ay jidha xagga amniga habeenkii meeshii laga soo jeedayo ay dib badan ka imaan karto haddana muhiim bay noqonaysaa dadka magaalada u jira 3 kilomitir ama 5 kilomitir service ka u imaanayaan barkay isbitaalka iyo halkaan oo kale iyo kuwa kale la furi doono waa distance aad u fog weeye dadka masaakiinta magaalada degan meel ay ka imaan karaan maaha marka mustaqbalka waxaan rajeynayaa inteeda hadhay soo noo bilaabay inaan anagu u faali doono xagga xaafadaha si aan dadka ugu dhawaanay dhakhaatiirta ka shaqeynaysa OBD-ga cusub oo la furay runtii waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay horumarka magaalada waxaad moodaa inuu sii badanayo farxad bay noo tahay waxyaabaha noocan oo kala markasta oo la furo waxaan ka codsanaynaa dhakhtarka muxuu ahaay dadku iska dhibaataysan yahay bulshadu muxuu ahaay aad bay ugu baahan tahay adeegyada muxuu caafimaadka ugu baahan tahay haddana ma haystaan muxuu ahaayay wixii ay ku imaan lahaayeen si marka ay u yimaadaan isku daaweeyaan waxa loo baahan yahay bulshada in loo dhimriyo waxa loo baahan yahay in adeegyada qaarkood ama wax laga dhimo ama free looga dhigo waxyaabo ay ku farxaan in loo sheego maalmo dhaweed waxbarashadii baa laga dhawaaqayay waad ogtiin wali hadeertan culeysku waa sii jira adeega caafimaadkuna waa ka sii daran yahay caafimaadku waa ka sii culus yahay marka Dr. Cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa bahda caafimaadka oo dhan bulshadu waa dhibaataysan tahay in loo dhawaado adeega loo soo dhaweysay ugu soo dhaweyseen inaad muxuu ahaayay qiimahana ugu soo dhaweysaan dadka aadka u danyarood aragtaan inay muxuu adeeg u baahan yihiin caafimaad haddana aysan waxba haysan looga dhigo shuruud looga dhigo in la daaweeyo adduunka waxa ka jira qofka markuu jiran yahay lama weydiiyo waxba marka hore waa la daaweeyaa ka bacdi baa wax la raadiyaa hadduu bixin karo marka waxa loo baahan yahay qof kasta oo jiran oo adeeg u baahan oo halkaan yimaad inuu ka noqon insha Allah waxa maantay aan ballan qaadayaa hadii Allah idmo dadkeenu wax badan caafimaadka kama hadlaan
laakiin waxa ogaataan dadka reer mudug ama reer Puntland oo xamar caafimaadku u doonto kulligood ay dhiban yihiin qofkii isbitaalada ay tagaan arkay baa og waxaan marka kula dardaarmayaa wardalkiina iimaansada dhaqaatiirtiinana iimaansada waxa laga yaabaa wixii halkan loogu sheegay asagoo dib qaba in haddana xagga loogu sheego marka waxa la rabaa inaad dadka aamintaan dhaqaatiirtana waxa ku xusanayaa in bulshada lala hadlo oo health education la sameeyo ka urur ahaan waa isku daynaa inaan panelists oo kala discussion oo dhibta dadku qabaan iyo waxa jira aan agaasino hadii alla idmo marka waxa leeyahay bulshada reer Gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa cardiology orthopedic waxa la yiraahdaa pathology waxa laga wadaa cadeedka qofka hadii kansar looga shakiyo in la xaqiijiyo inta laga qaado dheecaan ama cad laga jaro inuu kansarkii qabo iyo waliba diagnostic centerkii oo dhan oo aad dhagaxad hadaa ka wahsan jideen maanta waxa la idin keenay centerka Gaalkacyo marka insha Allah ka faa'iideysta annaguna insha Allah waa dadaalaynaa waxaan rajaynayaa waa caafimaadku waa qayb badan yahay specialist badan buu leeyahay mostly inay hadda Gaalkacyo ku idil yihiin isbitaallo kala duwan inay yaalaan waa isku daynaa inaan wacyi gelino laakiin bulshadana waxa la rabaa inay dadkooda wax weydiiyaan kana qayb qaataan bulshada waxaan leenahay soo dhawaada xaruntan cusub oo dhakhtarku soo dhaweeyay qaybihii xagga loo aadayo bukaan socodka dhaqaatiirta qaybada kala duwaneed in halkan laga helayo haddii qalliin noqoto iyo qaybo kalena xagga loo wareejinayo laakiin marka hore muhiimadu waxa waaye qofkii bukaan socodka ahaa emergency-ga doctor sheegay kale in halkan lagu tabiibayo oo lagu soo dhaweynayo xaqiiqdii waa sax weeye caafimaadku qaybo badan caafimaadka ayuu qayb ka mid ah ka yahay sida isbitaalada bareebadka iyo public labadaba hadana wasaaradda caafimaadka insha Allah waxaan leenahay waa kula shaqeynaa toore waan ku soo dhaweynaynaa bulshadana waxaan leenahay ka faa'iideysta fursadan qaali ah soo walaalo sheegay toor majida sheegay waa run in dad badan inta la qaaday oo waxyaabo simple loo qaaday xamar iyo meel badan loo qaaday lagu soo sheegay la yiri dhakhtarkii kugu horeeyay wuxuu ku sheegay baad gobolkaaga ama gobol kamid ah Soomaaliya lagu yiri markaas intii baad kharash ku bixisay ama diyaarad ku bixisay waxaan leenahay iimaansada dalkiina iyo deegaankiina waa sax in adeega aan ahayn dalka dibadda loo aado waa sax way ergaas waa hoosta ka xariiqaya laakiin wixii la oran karo dadka ehelkiina ku dhibaateeyeen kharashka ku dilayna deegaankiina uga faa'iideeyo dadkeena uga faa'iideeyo qofka luqadiisa taqaanid uga faa'iideeyo inta dhaqaatiirtiina oo luqadiina taqaan oo Soomaaliga yaqaan ku hadlaysid aqoontiina joogta insha Allah waxaan leenahay welcome toore adigiinta dhammaan martida waxaan leenahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii sharaf bay ii tahay anigoo afka maamulka gobolka Mudug ku hadlaya maanta inaan halkan xaruntan cusub oo isbitaalka GMC ama dhagaxade uu magaalada gudaheeda ka furtay inaan xarig jarkeeda qayb ka noqdo saad ogtihiin toor dhagaxade 30 sano ugu dambeysay oo dalka burbur ku jiray wuxuu khibradiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa uga faa'iideeyay bulshada Soomaaliyeed bulshada Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug waan ognahay runtii samafalka iyo dadaalka iyo waxtarka uu ku soo kordhiyay intuu halkan joogay waxaan leeyahay toor aad u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibada iyo khiyaartii muddada kula soo shaqeynaysay walaan ogahay duruufo adag xilli lagu jiray inaad dalkan isku daydeen samata bixintiisa iyo dalka bulshada ah oo dadka ugu tabartayar ay ku jiraan dadkii barakacayaasha ahaa ee ku jiraan dadkii abaaraysnaa ee ku jiraan dadkii magaalada iyo dadkii barnaamijyada ahaaba inaad ugu adeegtaan si kastoo aad awoodi kardhaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahadsantihiin haddaan intaa ka gudbo waxaan aad iyo aad runtii u soo dhaweynaya xaruntan cusub oo xarunta GMC ay ka furatay magaalada Gaalkacyo anaga og dadaalada iyo adeegyada aad bixisaan sidii bulshada wax gal ugu yeelina haddana u soo dhaweysaan dadka tabarta yar oo aan gaari karin xaruntii kalena iyadana aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa sidii aad ugu taageeri jirteen dadka aan waxaysan ay ugu muhiimsan yihiin dadka barakacayaasha aan ka warqabna ka dawlad ahaan inaad waxtar gaar ah u leedihiin ayagana sidii ugu soo adeegtaan haddii halkan idinku yimaadaan iyo haddii xarunta kale idinku yimaadaan insha Allah tacaala waxaan aad iyo aad runtii ugu bogaadinayaa dhaqaatiirta guud ahaan isduwaha ugu horeeya gobolkan sida ay isugu xil saareen adeegyada caafimaadka oo dhameystiran in gobolkana la soo gaarsiiyo haddana lagu daro in loo soo dhaweeyo runtii waa arrin iyaduna bogaadin mudan xarig jar ma ahayn muhiimaddu waxay ahayd inaan bulshada u sheegno muhiimadda uu doctor dhagaxada uu leeyahay Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxaan shaqooyinkii dhan uga soo baxay halkan ugu nimidna waxay ahayd inaan doctor aad iyo aad u mahadsantahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa mudooyinkii burburka uu jireen iyo iyadoo burbur jirin ba inaad bulshada u soo adeegtay